yihiin qowmiyadda Calawiyiinta ee Suuriya, maxaase keenay in boqolaal ka mid ah lagu dilo rabshadihii ugu dambeeyay? Calawiyiintu waa farac ka mid ah madhabka Shiicada Islaamka. Waxa ay ka kooban yihiin qiyaastii 10 shacabka Suuriya, waana qowmiyadda labaad ee ugu badan dhanka diinta kadib Muslimiinta Sunniga ah. Waxay intooda badan ku nool yihiin gobollada xeebaha ee Latakia iyo weliba Tartus. Madhabka Calawiyiintu wuxuu Suuriya ka soo shaacbaxay qarnigii 9aad iyo weliba 10aad. Ereyga Calawi waxa uu la macno yahay taageeraha Cali, oo ahaa in adeerkii Nebi Maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee. Si la mid ah Shiicada, Calawiyiintu waxa ay aaminsan yihiin in Imaam Cali ahaa dhaxal sugihii dhabta ahaa ee nebiga. Laakiin Muslimiinta qaarkood ayaa ku eedeeya bidcanimo, iyagoo u arkaa in ay Cali ilaah ka dhigteen, inkastoo culimmada qaar ay sheegeen in tani ay tahay fasiraad qaldan oo Shiicada la saaray. Inta badan haweenka Calawiyiinta ah ma xirtaan xijaab, sidoo kale dad badan oo Calawiyiin ama soomaan mana tukadaan, taasoo keentay in Muslimiinta kale ee Bariga Dhexe kula nool ay u arkaan dad aanan diin lahayn. Hogaamiyihii xilka laga tuuray ee Suuriya, Bashaar al-Asad, ayaa ka soo jeeday qowmiyaddan Calawiyiinta. Sidoo kale dad badan oo ka mid ah ciidamadiisa iyo hay-adaha ammaanka waxa ay ahaayeen Calawiyiin. Xasuuqii xukuumaddiisu ay u geysatay shacabka Sunniga ah ayaa huriyey nacaybka lagula kacay Calawiyiinta. Inkasta oo dad badan oo Calawiyiina ay sheegeen inay sidoo kale dhibanayaal u ahaayeen Asad, xitaa qaar badan waxa ay ahaayeen mucaarad. Kadib markii xilka laga tuuray, waxaa jira warar sheegaya in taageerayaashiisii qaar ay dib isugu urursadeen oo ay bilaabeen inay laayaan ciidamada ammaanka. Rabshadihii ugu dambeeyay lagu beegsaday Calawiyiintana waxaa loo arkaa inay aargoosi u yihiin weeraradaas.